xisbiyadii qaranku heshiis bay ka gaadhay dhankii doorashooyinka gaar ahaan guddiga komishanka doorashooyinka soo kale waxay sheegeen in koobitaan xildhibaan ay mooshin keenaan golaha wakiilada si ay arrintaas loo ansixiyo amaba loo dhaafo walla si kula muuqata horta heshiiskii la sugayay baa muddo dheer baa dadku sugayay doorashadana in badan bay dib u dhacday runtii in muddo aad u dheer bay dib u dhacday waxaana weeye waxyaabaha doorashadu waxyaabaha nabadgelyada iyo sidii jiritaanka Somalilandba ay ku jirto haddaan doorasho dhicin dee dalka waxaa xukumaya dadaan mandate dadka ka haysan taasina arrin dee macquula maaha talabaad international community dad aqoonsi doonayaynu nahay nidaamka aynu qaadanay xisbiyada badan iyo doorashooyinka iyo dastuurka waa nidaamka dee laynagu ixtiraamo aynu kaga duwannahay Soomaalida inteeda kale oo dhan taa inaynu xoojinno oo aanay inaga biiqbiiqin baa loo baahnaa runtiina waa ku hambalyeynaya xisbiyada go'aankan ay gaadheen arrinta komishanka in la kordhiyo iyo inaan la kordhin waa arrin guud ahaan la isku waafaqay xeerkuna golahu baa yaalla waxaan qabaa golahuna inuu maaragtay ansixin doono xataa haddii golahu aanu ansixin dee 7 xubnood intii aynu jirnayba 7 xubnood baynu ku wadnay doorasho inaga xumaatayna may jirin tii dhaweydunbaa hadal ka yimi mar walbana qaabkaa loo soo xulo ayaa loo soo xuli jiray waxaan qabaa in ay u baahan tahay in kalsoonidii la soo celiyo komishanka kalsoonidii lagu soo wada celiyo haddii komishankana ay mataqaanaa ay meesha banneeyaan iyadoo muddadooda dhammaan kuwa kalena dhaqso loo xulo heshiisna lagu yahay waxaan qabaa in wax waliba inuu hagaagayaan waxaan kaloo rajaynayaa wax kastoo carqaladoo cusub oo dambe soo baxa in xisbiyadu si wada jira ay dee uga wada tashadaan oo go'aan laga wada qaato oo mas-uuliyaddaasi way wada saaran tahay laakiin xildhibaan waxaa taagan arrintiiduna saami qaybsigoo markii hore ay maxkamaddu xukuntay in imika rajayntii lag ba laga qabaa in khilaafkan oo xaggaa saami qaybsiga ku saabsan soo baxo wallaahi arrintaasi waa arrin xasaasiya oo jirta waxaan qabaa xisbiyadu inay ku hawlan yihiin arrinta wadahadalkeeda iyo ka shaqaynteeda arrin habsaantii weeye oo ahayd mar hore ilaa madaxweynihii hore hortaallay runtiina carqaladu way noqon kartaa doorashada carqalad way ku noqon kartaa waxaa loo baahan yahay dadku in ay raalli ka wada yihiin qaabka waxa loo dooranayo iyo maxaan ku dhahdaa ka qaybgalka talada waxaan rajaynayaa in xal lagu wada qanacsan yahay kumeelgaadhna ha noqdo hadduu doonaye la gaadho si aan doorashadu inooga baaqan xildhibaan maxkamad baa la geeyey markii ugu dambeysay arrintaas saami qaybsiga la'aanteedna inaan doorashada la gelin taasoo lagu samaynayo in weliba la sameeyo maxay ahayd diiwaangelin rasmi oo dadka la wada tiro kooban haddii aantiina aanay dhicin doorashadii intana ka harsan tahay heshiiska xisbiyadu mar haddii maxkamadda tii ay sugayso sidee laga yeeli karaa waxaa laga yeelayaa horta maxkamaddu waxay ku shaqaysaa sharcigana waxaa dejiyay baarlamaanka maantana xeerkii baarlamaanka hor yaalla go'aankii hore wuxuu khuseeyey xeerkii hore mar walbana go'aanka baarlamaanka ee kama dambaysta ah ka dambeeya kii dambe ayaa awoodda leh xataa maxkamaddu dee xeer waxay ku shaqaysaa baarlamaanku baaskareeyey waxaan qabaa baarlamaanku haddii uu baaskareeyo wixii uu baaskareeyo waa sharci